qaybtani waa qaybta asaasiyaadka. saddexda qaybood ee ah asaasiyaad, qayb dhexe iyo qayb sare, mid walba mawduucyo gooniya baan kaga hadlayaa. mawduucyadaas oo dhan ma rabo inaad ku jahwareertid, sababta oo ah waxaan rabaa inaan suuqa kaaga dhigo wax fudud. macadka darwiish academy wuxuu u taagan yahay in uu suuqan oo dhan fududeeyo. marka qaybta asaasiyaadka ah muuqaalo kala duwan baa ku arki doontaa. muuqaaladaas oo dhan nuxurkooda asaasiyaadka marka laga hadlayo, ereyada ugu badan oo kusoo laalaabanaya dhegahaaga baan rabaa inaan kula wadaago erey bixintooda, ama waxaa la dhaho terminology. wax walba marka la baranayo waxa ay leeyihiin ereyo u gooniya oo dadkaas waxaa baranaya isla fahmayaan. dadka dhakhaatiirta ah waxaa jira qofka dhakhtarka markuu warqad qoro waxaa qofka caadiga oo adag tahay mararka qaar inuu akhriyo, balse qofka farmashiga jooga wuu akhrin karaa. qofka lawyerkaa sidoo kale waxaa jira luuqad gooniya iyagu ku hadlaan, ama ereyo terminology gooniya iyagu ereyo bixin ay isla garanayaan. dadka ganacsatada ah oo dhaqaalaha barta waxaa jira kuliyadda dhaqaalaha ku jira ereyo gooniya ay adeegsadaan. marka laga hadlayo marka suuqan forexna waxaa jira ereyo gooniya oo marar badan dhagahaagu yacni maqlayaan ama dhagahaaga ku dhacaya inta aad cusub tahay. marka saada ugu dawaqid waxaan rabaa inaad terminologyga ereyadatan aad baratid, aniga oo erey bixinta luuqadada Soomaaliga kugu qoray. waxaan ka bilaabaynaa qodobka koowaad. waa maxay candlestick? candlestick waa tusiye ku tusinaya tan way waa tusiye ku tusinaya suuqu masalba mise waa buy buu ku tusinaya waqti xaadirka kan. candlestick hadii lagu dhaho waa maxay? waa tusiye ku tusinaya suuqu masalba mise waa buy. wuxuu kaloo ku tusinayaa marxaladda uu suuqu ku jiro, jahwareer buu ku jiraa, masalba mise waa buy. waxa ku tusinaya waa candlesticks. kandhaladuna waa shaxdan dhan aad aragtay oo la isku geeyay waxay kasoo askumeen waxa la dhaho candlestick. waxa ku xiga marka waxa la dhaho time frame. time frame-ku waa tusiyaha ku tusinaya daqiiqadaha, saacadaha, maalmaha, toddobaadada iyo bilaha dhaqaaqa uu suuqu soo sameeyay wixii hore tagtadii, yacni hadda samaynayo oo ah taagantii, samayna doono mustaqbalka oo ah timaadada buu ku tusinayaa time frame-ku. isagana qeexidiisu waa intaas. waxaan guda gelnaa waxa la dhaho pip. waa maxay pipku? ogowna time frame-ku waa waqtiga uu suuqu soconaya. kandhalkan aad aragtay wuxuu soconayaa waqti. casharada dambe iyagoo faahfaahsan cashar ku xiga aad arki doontaa. candlesticksku waqti buu ku socdaa. kandhal walba ama ha yaraada ama ha weynaada, haddaad 1 hour tagtid micnaheedu waxa weeye kandhal walba waxa uu socday 1 saac. haddaad tagtid 15 daqiiqo micnaheedu waxa weeye kandhal walba waxa uu socday 15 daqiiqo. haddaad tagtid hal maalin kandhal walba waxa uu socday ama ha yaraada ama ha weynaado 1 maalin. haddii aad tagtid hal asbuuc kandhal walba wuxuu socday 1 asbuuc, ha yaraado ama ha weynaado 2 beri buu socday. haddii aad tagtid bil kandhal walba wuxuu socday bil. markaad bilisay micnaheedu oo dhan waxa weeye hal suuqa kan oo dhan candlesku wuxuu ku socdaan waa waqti. time frame-kuna waa muhiim, qeexidiisuna waa kaas. biibku waa maxay? waa dhaqaaqa uu suuqu sameeyo marka uu buy yahay ama uu sell yahay. biibisku waa dhaqaaqa uu suuqu sameeyo marka uu buy yahay ama sell yahay. markuu suuqu kor u socdo oo buy yahay, ama markuu hoos u socdo oo sell yahay, dhaqaaqa uu sameeyaa la dhahaa. waa maxay marka lot size? lot size-ku waa lacagta cayiman ee aad go'aamisay in aad suuqa la geshid. maxaa ka wadaa lacagta cayiman aad go'aamisay in aad suuqa la geshid? haddii akoonkaaga $100 kugu jirtay, $100 dhan suuqa lama gelaysaa ama $200 kugu jirtay. waxaa la gelaysaa 20 senti ama 50 senti oo ka mid ah tiri baan rabaa inaan suuqa la galo.
taasaa waxaa la dhahaa lot size. Lacagta kugu jirta balansigaaga ama akoonkaaga kugu jirta brokerkaaga inta aad rabtid inaad suuqa la geshid baa waxaa la dhahaa lot size. Waa maxay profit? Profitku waa faa'iido, waa faa'iidada aad suuqa ka faa'iiday baa la dhahaa. Losskuna waa maxay? Waa khasaaro, waa khasaarada aad suuqa ku khasaartay oo jihada aad suuqa saxda ah u falaqaysa hadduu ku aado oo kugu dhaco TP-ga waxaa la dhahaa take profit-ka maqlaysa waxa weeye waa faa'iidadaadii oo kugu dhacay. Yacni kana waa maxay? Waa loss oo waa khasaaradaadii. Waxaa maqli doontaa stop loss. Stop loss-kaas waa maxay? Waa meesha aad dhigatay khasaaraha. Profitkuna waa maxay? Waa meesha aad dhigatay targetka. Marka kan waxa raacaya hadhow TP oo ah take profit. Kana waxa raacaya stop oo ah stop loss. Waa inta aad rabtid inaad khasaartid numberka u samaysanaysid iyo take profit oo ah meesha aad rabtid faa'iidadaada. Marka iyagoo qeexan waa ka hadli doonaa balse si guud waa inaad u fahantid oo hadhow ma taqaanid profit waxa uu yahay oo hadhow waa fahmaysaa take profit waxa laga wado. Haddaa la fahantid loss waxa uu yahay waa fahmaysaa stop loss waxa laga wado. Marka kaas waa muhiim. Entry point-igu waa maxay? Isaguna waa meesha cayiman aad suuqa ka gashay. Meesha cayiman ee aad suuqa ka gashay qiimaha suuqa aad ka gashay way. Ee aad ka gashay qiimaha lacagta euro USD aad meel cayiman qiimaha salkaas ka galay entry-ga meesha saxda. Entry-guna waa meesha suuqa ka galaysid ilaa iyo aad ka gaaraysid meesha uga baxaysid. Waa maxay waxa la dhaho sell, short, bearish, saddexdan magac oo dhanba micnaheedu waxay u taagan yihiin iska iibin. Waa language-ka suuqa ku arki doontid luqadda ama terminology-ga kan. Sell waxay u taagan tahay waxa weeye waa iska iibin. Short waxay u taagan tahay iska iibin. Bearishna waxay u taagan tahay iska iibin. Saddexda tanba micnaheedu waxa weeye waa hal micne sell bayna isku noqonayaan. Laakiin magacyadan kala duwan baa laga dhagahaga inay ku soo laabtaan ama uptrend wax la dhaho waa inaad fahmi kartid marka. Waxa la dhaho downtrend baa ka wadaa. Sell markuu yahay suuqa waa downtrend. Sell, short, bearish, downtrend waxaasoo dhan waxaa la isku dhahaa iska iibin. Buy baa maqlaysaa, waxaa maqlaysaa long, waxaa maqlaysaa short, waxaa maqlaysaa bullish, buy, long, bullish, uptrend waxaasoo dhan waxaa la dhahaa soo iibsasho oo markaa suuqa buy ku galaysid. Intan waxa weeye walaalayaal waa ereyada aad asaasiyaadka ama erey bixinta casharada asaasiyaadkan aad ku arki doontaa muuqaalada. Baa wax rabaa marka ereyo fara badan dhagaha ku soo laabta inaad macnahooda taqaanid. Waa mahadsantihiin. Waxaan idin rajaynayaa guul iyo safarkiina quruxda badan inaad horumar ka gaartaan suuqa ka forex idinkoo ka aflaxaya Darwish Academy. Sirta ku jirta Darwish Academy ama aad ka faa'iideyna in noloshiina wax badan ka bedesho tiina tan qoyskiina iyo bulshada idinku hareeraysan. Horumar baa idin rajaynaya saaxiibayaal. Guuleysta.